barasaabka gobolka Hawd Axmed Yaasiin Maxamed Faarax oo uu wehelinayo xogayaha fulinta dawladda hoose ee degmada Balli-Gubadle Saalax Maxamed Idris ayaa maanta daac furay deeq raashin ah oo loogu talagalay dadka danyarta ah ee ku dhaqan degmada Balli-Gubadle. Kaalmadaasi raashinka ah oo ay ku soo deeqday hay'adda Jimciyatu Kuweydiya lil Amali Insaani oo kaashanaysa hay'adda Geeska Afrika. Deeqdaasi raashinka ah ayaa la gaadhsiiyay 400 oo qoys oo danyara. Raashinkan ayaa iskugu jira bariis, daqiiq, sonkor, saliid, timir iyo caano. Ugu horreynna waxaa halkaasi ka hadlay mas'uuliyiin ka socotay hay'adda Geeska Afrika. Maanta oo ay taariikhdu tahay 17 bishii 10aad 2022 waxaanu ku qaybinaynaa gobolka Hawd magaalo madaxdiisa Balli-Gubadle ee raashin loogu talagalay danyarta iyo dadka baahan oo ka kooban 400 oo qoys. waxaan Ilaahay subxaanahu wa ta'aala u weydiinaynaa walaalaha khayrka jecel ee soo bixiyay khayrkan الجمعية الكويتية للعمل الإنساني ليراهدو إلهي ميساق حسنا قدرو مشروعا وحفولينسا هيئة سمافلك جيسك أفريكا ورنتي مرر فربادان قبالة جمهورية الصومال لوح فربادان كسو قباتي وحان إلهي وقبر ينالعيد كستو كقيم قادتي ميساق حسنا قدرو وحان آدي آدو قم هادنغينا مامولكا قبالكا تاي برستابكا مايركا حقاياها iyo guud ahaan intii ka soo shaqeysay dhamaantoodba waxaan u ducaynaynaa mar labaad walaalaha khayrkan soo bixiyay raashinka waa raashin dhameystiran oo ka kooban 3 xaaf oo raashin ah oo kala duwan kartoon timir ah 2 caagadood oo saliid ah iyo daasad caana ah waa amal ay nagu talagalay walaalaheena dhibaataysan ee abaaraha iyo sixir bararkuba uu saameeyay. بحمد الله سبحانه وتعالى وتوفيقه تم اليوم توزيع السلال الغذائية ل400 أسرة من الأسر الفقراء والمساكين والمحتاجين والأيتام والأرامل. وهذا المشروع تبرعه فاعل خير من دولة الكويت الشقيقة بواسطة الجمعية الكويتية للعمل الإنساني وتنفذه هيئة القرن الأفريقي الخيرية. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من المتبرعين بصدقاتهم وأن يجعل هذا العمل الصالح في ميزان حسناتهم ونقول لهم جزاكم الله خير الجزاء وبارك الله في أموالكم وأولادكم وشكرا لكم على ما قدمتم من إحسان وصدقات للمسلمين المحتاجين وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحنا هلكن معنا مسؤولين هيئة جيسك أفريكا مسؤول كذين على جيتي iyo mas'uuliyiinta kale wada hawshan deeqda ay soo gaarsiin dadka masaakiinta xilli sixir barri wax laga jiraan aad iyo aad baad mahadsantihiin waana idinka soo dhaweynaa waana mahadsantihiin marka u horeysa ilaahay baa mahadle marka xigta waxaan u mahad celinaynaa hay'adan Geeska Afrika aad iyo aad baad mahadsantihiin baan leenahay muxsinka magaciisa qariye soo bixiyay raashinkana jazaakumullahu khayr baan leenahay maanta waxa halkan aan ku qaybinay 400 oo qoys oo ka kooban sonkor bariis daqiiq timir caano saliid inta ay tam ka kooban insha Allah annaguna waxaan rajaynaynaa dadkii u baahnaa loogu talagalay inuu Ilaahayna waafajo on dadkii gacmahooga dadkii ay galaan dadkana waxaan u rajaynaynaa inay kaga baxaan muddo hadduu la yiraaho dhibaatada haysatay abaaraha haystay inay kaga baxaan Ilaahayna waxaan ka baryaynaa abaarahan soo noqdo inuu inaga jabiyo gacantiisa lagu dhargaa inuu Ilaahay ramxaadka inoo liiso inaga jabiyo Ilaahayna taaban ka baryaynaa mar labaad iyo mar saddexaad ba waxaan halkan uga mahad celinayaa hay'adda Geeska Afrika ee khayriga dhamaantiin baad u mahadsantiin hawlwadeenadeedana dhamaanteed baad iyo aad u mahadsantiin baan leenahay. Cabdi Najiib Dayib Cismaan TV-ga qaranka Soomaaliland magaalada Balli-Gubadle.